tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola oo sheegay in Real Madrid iyo Barcelona ba ay baadi goobayaan Raheem Sterling iyo Bernardo Silva. Gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Lyon Jean Michel oo rumaysan in Paul Pogba uusan ku laaban karin kooxda kubadda cagta Juventus. Maamulka kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund oo amaan kala dulacaya xidigooda cusub ee Haaland oo dhacdo la yaab leh ka sameynaya kooxda Borussia Dortmund. Real Madrid oo adduuncageed gaariyo 70 milyan oo lacagta Euro-ga inay ku soo gabagabeeyaan dalabka ku aadan Camavinga xidiga kooxda Bayer ee Roberto Lewandowski oo ka hadlay sababihii uu u diiday inuu u dhaqaaqo Manchester United. Arsenal oo u dhaqaaqaysa difaaca Bayer Leverkusen ee Jonathan Tah. Juventus oo 70 milyan ku dalbanaysa xidiga City ee Gabriel Jesus. Barcelona oo mushahar aad u fara badan u ballan qaadaysa wariyaanka kooxda Inter ee Lautaro Martinez. Kooxaha Chelsea iyo Barcelona oo si wada jir u baaday goobaya golahayaha kooxda Ajax ee Onana. tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa ka warqaba dalabyada ku aadan Real Madrid iyo Barcelona oo si wada jir u baaday goobaya xidigaha Bernardo Silva iyo Raheem Sterling. Toddobaadkeenu ka soo gudubna ayaa labadan kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ba shaac ka qaadeen in ay la soo saxiixan doonaan qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester City. Real Madrid durbadiiba waxa ay dalbatay xidiga Raheem Sterling halka Barcelona ayana ay sheegtay inay aad u doonayaan xidigaasna garabka kaga ciyaara kooxda Manchester City ee Bernardo Silva. labadan ciyaartoy ayaa dhaxad u ah kooxda kubadda cagta Manchester City. tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa xusay in waqtigan xaadirka City aysan diyaar u ahayn inay fasaxdo ciyaartoydooda ugu muhiimsan. waxaan isku dayi doonaa inaan xakino dalab walba ee markaa inaga soo gaaro kooxaha kala duwan ee ka dhisan qaaradaas Yuruba. waan la soconaa in inta badan ba ay rajeynayaan in ay xooga saaraan inay kala diraan qaar ka mid ah ciyaartoyda ay ku taagan tahay kooxda kubadda cagta Manchester City. Pep Guardiola ayaana markaa sheegay marba haddii Manchester City laba xil ciyaareed laga mamnuucay ka qaybgalka tartamada UEFA taasi inaysan ka dhignayn in waqtiga kan xaadirka halkaasi ay ku baabaaday awoodda kooxda kubadda cagta Manchester City. gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Lyon Jean Michel ayaana markaa xusay in ciyaaryahanka ka tirsan kooxda Manchester United Paul Pogba uusan caga dhigan doonin kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus. haddaba Jean Michel wuxuu leeyahay fikir ahaan markaan cabiro mustaqbalka wiilka reference ee Paul Pogba waxaan is leeyahay in marka uu dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabeu ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ku ciyaarto. toddobaadkii ugu dambeeyay saxaafadda kala duwan ee dunida ayaa markaa qoraysay in Paul Pogba oo waqtiga kan xaadirka laba dalab ee muhiim ah ka haysta kooxaha Real Madrid iyo Juventus. balse waxaan cadeynayaa waqtiga kan xaadirka in Paul Pogba uusan ku laaban karin kooxda kubadda cagta Juventus. taasi waxaan u leeyahay Juve waxay haysataa xidiga Andre Rabiot mana garan karo sababaha kaliya ee ku kala fikirta in Juventus ay u baahan karto xidiga Paul Pogba. laakiin markaan fikirkayga ka hadlo Pogba ayaan markaa u dhaqaaqi kara kooxda kubadda cagta Real Madrid. waxaana sidoo kale uu Jean Michel oo ah gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Lyon uu sheegaya in laacibkani Manchester ka tirsan ee Paul Pogba uu muhiimad gaar ah uu siinayo in marka uu la shaqeeyo tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane. kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Germany ayaa amaan maamulkooda kala duldhacaya ciyaaraanka da'da yar ee kooxdaasi Haaland oo sanadkanaba ku soo biiray kooxdaasi dhacdo la yaab leh ayuu ka sameeyay tartamada kala duwan ee qaaradaas Yurub. xidigana ayaa ka yaabsaday kulan ciyaareedka tartanka horyaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League kooxda Paris Saint-Germain. tan iyo xilliguu ku soo biiray Haaland ayaa 450 daqiiqo gudahooda wuxuu ku dhaliyay 11 gool. xidigani ayaana dhacdo la yaab leh ka sameynaya kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. taageerayaasha kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund way aamin la yihiin da'yarkani waxa uu ka sameynaya tartamada kala duwan ee qaaradaas Yurub. tababarayaashii hadalhaya xidigani Haaland waxaa ka mid ah tababare Jose Mourinho hogaaminaya Tottenham Hotspur, macallin Jurgen Klopp ee Liverpool hogaaminaya iyo tababaraha Manchester United ee tababare Ole. haddaba Borussia Dortmund ayaana markaa sheegtay waqtigan xaadirka xidigani Haaland uu u suurtagelin karo in ay kama dambaysta finalka tartanka Champions League marka uu laacibkan u gaarsiin karo kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ayana adduuncageed gaaraya 70 milyan doonaysa inay markaa ka gudbiso dalab ku aadan xidiga Camavinga. ciyaarankani Eduardo Camavinga wuxuu ka mid yahay xidigaha kooxda kubadda cagta Rennes, balse waxay kooxda kubadda cagta Real Madrid danaynaysaa inay markaa xidigani ka faa'iideysato ayadoo 2 sano ka hor ay ciyaarankani aad u xiiseynaysaa. haddaba waxaa kaliya Real Madrid kaga xiran in laacibkaasiba ay la soo wareegto adduun dhan 70 milyan oo lacagta Euro-ga oo dollarhan u dhiganta
muddo 76 milyan waxaana madaxda kooxda kubadda cagta Real Madrid doonayaan markuu dhamaado xil ciyaareedkani inay ka fiirsadaan dalabka ku aadan xidigaasi Eduardo Camavinga oo markaa lagu tirinaya in uu gali karo liiska ciyaartoyda Real Madrid ay qorsheynayso markuu dhamaado xil ciyaareedkani laacibka kooxda kubadda cagta Bayern Munich Roberto Lewandowski ayaana ka hadlay sabihii uu kaga haray ku biiristii kooxda kubadda cagta ee Manchester United hadda wuxuu laacibkan uu ka shakeeyay tan iyo xilliga uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund waxaa si weyn ula soo xiriiray tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United ee Sir Alex Ferguson oo Roberto Lewandowski markaa ka dhaadhicinayay in ciyaaraanku u soo dhaqaaqo Stadia Old Trafford markaasi ay da'diisu ay jirtay Roberto Lewandowski 23 jir waqtiga kan xaadirka laacibkan reer Poland ee Roberto Lewandowski ayaa da'diisa si cagcageynaysa 31 sano jir haddaba laacibkan Roberto Lewandowski ayaa waryahanka kaliya ay waqtiga kan xaadirka ku duusha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxaan uu leeyahay xaqiiqdii mar ayaan u dhawaa ku biirista kooxda Manchester United balse xilligaasi maamulka kooxda Borussia Dortmund ayaa albaabada ka xirtay dalabkaasi ku aadana Sir Alex Ferguson inaan markaa u raaco Stadiaha Old Trafford tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arteta ayaa markaa rajeynaya inay la soo wareegaan xil ciyaareedkani markuu dhamaado difaaca kooxda Bayer Leverkusen ee Jonathan Tah laacibkan ayaa ka mid ah difaacyada waqtiga kan xaadirka sida weyn marka kaga dhex muuqanaya Bundesliga wadankaasi Germany waxaana uu ka mid yahay difaacyada ay ku taagantahay kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen Mikel Arteta oo tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaana markaa doonaya in ciyaaryahankani uu ka dhigo difaacyada uu ku adkaan doono xil ciyaareedka soo socda mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Arsenal asagoo markaa sheegay in aanan la isku haleyn karin sida David Luiz iyo Mustafi waxaana uu Arteta uu doonaya inuu la soo wareego sida xidiga Jonathan Tah oo ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen waxaana sidoo kale uu u dhawaaqay dhowr ciyaartoy kala duwan ee ka ciyaaraya tartamada kala duwan ee qaaradda Yurub uu ku wargeliyay inuu u baahan yahay inay ku soo biiraan kooxda kubadda cagta Arsenal markuu dhamaado xil ciyaareedkani laakiin waxa uu diiradda xoogan u saaraya difaacani u dhashay wadankaasi Germany Jonathan Tah kooxda Cristiano wadankaasi Talyaaniga Juventus ayaa adduun dhan 70 milyan doonaysa inay kula soo wareegto Gabriel Jesus wiilka kan u dhashay wadankaasi Brazil ayaa ka niyadjabay kadib markii kooxda kubadda cagta ee Manchester City laga caribtiray labada xil ciyaareed ee soo socda tartamada UEFA waxaana laacibkani Gabriel Jesus kooxda kubadda cagta Juventus doonaysa inay kula soo wareegto adduun dhan 70 milyan waa sida markaa ay aaminsan yihiin ayadoo sidoo kale kooxda kubadda cagta Juventus qorsheynaysa inay markaa la soo wareegto xidiga kooxda Paris Saint-Germain amahda kula jooga ee Mauro Icardi laakiin marka hore waxay doonayaan inay meel soo saaraan dalabkoodii Gabriel Jesus Barcelona ayaa sidoo kale mushaar aad u fara badan u ballan qaadaysa xidiga Lautaro Martinez oo weerarka Inter markaa kaga ciyaaraya ayadoo la doonaya heshiis gaaraya tan iyo sanadka 2025 in markaa Barcelona ay ka saxiixato haddaba Barca ayaa doonaysa in Lautaro Martinez adduun dhan 110 milyan lacagta Euro-ga inay markaa kula soo wareegto mushaar dhan sanadkiiba wuxuu qaadan doonaa 7 milyan sida markaa laga soo xigtay madaxa ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Barcelona haddaba Barca rajadeedu waxay tahay oo kaliya Lautaro Martinez sida uu dhaqsiya badanba in ay ku soo biiriso Stadiada Camp Nou Stadium si ciyaaryahankaasi u noqdo badalka Luis Suarez kooxaha kubadda cagta Chelsea iyo Barcelona ayaa weli ku dagaalamaya dalabkoodii ku aadanaa goolhayaha kooxda Ajax ee Andre Onana haddaba laacibkan ayaa la sheegay in xil ciyaareedkan uu ka soo dhaqaaqi doono Stadia kooxda kubadda cagta Ajax 23 jirkani ayaana markaa loo arkaa inuu ka mid yahay waryahanada waqtigan xaadirka ugu wanaagsan Chelsea waxay doonaysaa in markaa ay ku bedelato goolhayaheeda Kepa laakiin Barcelona ayaa sidoo kale doonaysaa inay markaa sida ugu dhaqsiyaha badan garoonka ay geyso kana dhigto Onana goolhayaheeda koobaada labadani kooxood ee Chelsea iyo Barcelona ayaa muhiimad gaar ah siinaya goolhayahani kooxda Ajax ee Andre Onana ay u arkaan inuu ka mid yahay da'yar mustaqbal dheer ku leh kubadda cagta waana nin khibrad weyn u leh tartamada kala duwan ee qaaradda Yurub koox walbana waxay danaynaysaa inay ugu dambeyntii guusha goolhaye Andre Onana ay markaa ka gaarto markuu dhamaado xil ciyaareedkani ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Juventus ayaa markaa sheegtay inay gacanta ku soo dhigi doonaan difaaca kooxda Paris Saint-Germain ee Kimpembe ninka kan u dhashay wadankaasi Faransiiska ayaana markaa loo arkaya difaacyada da'da yar waqtiga kan xaadirka sida weyn kaga dhex muuqda qaaradda Yurub haddaba maamulka kooxda kubadda cagta Juventus ayaa doonaya qorshaha inay ku daraan markuu dhamaado xil ciyaareedkani difaacyada ugu macquulsan ay la soo wareegi karaan xilli Giorgio Chiellini uu dib ugu soo laabtay garoomada kadib muddo aad u fara badan uu dhaawacyada garoomada uu kaga baqnaa laakiin maamulka kooxda kubadda cagta Juventus ayaa da'yarkani Paris Saint-Germain ee Kimpembe u arkaya difaac waqtigan xaadirka ku haboon in uu ku soo biiro Stadia kooxda kubadda cagta Juventus heshiiska kooxda reer Faransa ee Paris Saint-Germain Kimpembe
ayaa wuxuu ku egyahay bisha Juun ee sanadka 2023